Well, we've been working in Somaliland for nearly 10 years now, and the reason for this visit is that we're at the point where we can move our project forwards. waxaanu hadda ka shaqeynaa Somaliland muddo laakiin safarkaygan hadda waxa uu quseeyaa in aanu hore u sii dhaqaajino hawshii aan Somaliland u joognay iyo in aanu bilowno mashaariicdaasi oo waxa nagu soo biiray shirkadda CBC ee laga leeyahay dalka Taiwan kuwaasoo imanaya halkan oo naga shaqeynaya sahaminta gaaska iyo saliidda Somaliland. They will come and work with us on exploring the license. waxaanu rajaynaynaa in aanu si buuxda uga hawlgali doono sahaminta iyo qodista sanadaha soo socda. And so we bring in partners to help us understand that risk and help us to move the project forwards. And so that's what we're doing. We're very excited to have CPC as our partner. We think it's a strong partnership for the license. waa hawl ay ku gudaaman yihiin haliso iyo culeysyo kala duwan lacag badan ayaa galaysa taasina waa sababta aanu ugu baahnay cid kale oo nala shaqeysa derista oo fahanta halisahaasi. waxaanu ku qanacsanahay in ay na caawiso CBC oo aanu ka wada shaqeyno hawshaas. To drill the well on our license within the next couple of years. We're clearly optimistic. As Bill says, we've been here for 10 years and we believed at the start of this journey and we continue to believe now. We believe in the rocks and we believe in Somaliland as a place to invest. I say we're waxaanu si cad ugu niyadsanahay si wadada hawsha aanu halkan muddada u joognay waxaanu aaminsanahay inay Somaliland tahay meel la maal-gashan karo shidaalkuna uu cilaago waanu aaminsanahay in hawshaas laga soo dhalaali karo laakiin qodista gaasta iyo saliiddu waxay u baahan yihiin shaqo badan waayo 10 ilaa 13 block oo ceelasha saliidda gaaska ah ayaa hadda u baahan in dhulka aad hoos loogu qodo. What's beneath the ground on the SL10B13 block is to drill a well. Then when we drill a well we can find out if there is oil there. markaas la gaaro oo si fiican loo qodo ayaa la sheegi karaa xaddiga ku jira inta uu leeyahay dhaqaalaha uu ku fadhiyo iyo wixii la mid ah. Then when we drill a well we can find out if there is oil there, if it's in sufficient quantities to be commercial for all of us. And as I think I would always say is inta badanna waxaan raahnaa waa wax ku jira gacanta dabeecadda dhulka hooyo iyo sida markaasi uu hodanka ugu yahay ama ay ugu kala duwan yihiin ceelashu saliidda of Mother Nature to a certain extent.